qoyska Caashe Ilyas oo ahayd gabadhii 12 jirka ahayd ee la kubsaday kadibna lagu dilay magaalada Gaalkacyo ayaa dhaliilay qaabka loo wado baaritaanka lagu sameynayo dadkii ka dambeeyay dilkii lagu la kacay gabadhooda. Aabaha gabadhan Ilyas Aadan oo VOA la hadlay ayaa sheegay inuu dareemay in wadadii laga weeciyay baaritaanka kiiskan. Aaba Ilyas ayaa xilliga oo VOA la hadlayay xusuus ahaan u watay boorsadii ay gabadhiisa iskuulka ku tagi jirtay. Nuux Muuse Barjaab ayuu ugu warramay magaalada Garowe. warbixintan ayuuna nuuxnoo hayaa. Ilyas Aadan waa aabaha dhalay Caashe Ilyas oo bishii February dabayaaqadeedii dil iyo kufsi loogu geystay magaalada Gaalkacyo. wuxuuna Ilyas soo gaaray Garowe si gabadhiisa cadaalad u hesho kadib markii uu dareemay sida uu tilmaamay in wadadii laga leexiyay baarista kiiska iyo horgeynta cadaaladda. gudoomiyaha gobolka wuxuu noo sheegay 4 kiiska in loo hayo oo dil ah oo gabadha dilay. sabtidii dhaweyd buu wuxuu yiri laba loo hayaa waxa inta kale waa bribiir annana waxaan ku nir 4 baa sheegtay 4tii away PS tan la hadlay in leeyahay la shaqeey waxaan ku yiri labada nin sheegaysa maxay tahay wuxuu yiri annagu dad kale ma hayno biir labadii ninna waa dhoofinay madaxweynaha soo codsaday marka dadka kale waa sii daynaynaa waxba kuma hayno gudoomiyaha daraawiishtaan u dhiibaynaa afdalo markaasaan anagu iska soo kacnay Garowe nimid. Ilyas oo u waramay VOA ayaa dalbaday in sharciga islaamka la mariyo ragga geystay falkaasi. anagu waxaanu taaganahay shariicada islaamka aanu taaganahay qisaas baanu doonaynaa wax kale aan ka doonaynaa ma jiro. kiiskana waa kiis dil ah iyo kufsi oo ugu wali ka dhacay Soomaaliya. Ilyas ayaa ka maqnaa dalka markii uu dhacayay falkaasi wuxuuna tilmaamay in sawir xanuun badan ay ku reebtay dhacdadaasi qalbigooda. aad baan uga naxay gabadhaas markii la sheegay dareenka in la kufsaday oo haddana la dilay. aad baan uga xumaaday iyadoo dadkii Ilaahay ay jirtana la istaqdimuuna saacada wala istaakhiruuna ma dhaafteen mar walba mashadaadii laakiin waxay ku suubiyaan baan aad iyo aad uga naxay. markaa jigjigaan ka soo kacay wardheer baan soo gaaray 2 habeen baan wardheer joogay oo gaari laan ku joogay Gaalkacyaan soo galay markaan soo galayna gabadhii oo la aasay baan u imid dadkii loo hayeen dad deriskayaga ay ahaayeen oo 2 boos baan iga xigtay guriga